Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelka Saliika. Waxaan sharxayaa maanta caafimaad, gaar ahaan maadada first aid-ka qaybta fracture sida taqaanaan ama jabniin. Jabniinkiisa waxaa loo qaybiyaa laba ayaa loo kala qaybiyaa: open fracture oo jabniin furan iyo closed fracture. Marka open-ka iyo closed-ka waxay kala baxayaan dhowr siyaabood. Marka loo fiiriyo kale open-ka iyo closed-ka waxay leeyihiin qaybo kala duwan. Jabniinkiisa waxaa jira ilaa dhowrkaasoo ay kala yihiin marka mid furan, jabniin furan oo kale labada laf oo kale inay kala tagaan oo kale, si midkan B-da ka muuqato oo kale, iyo jabniin lafta meel ay ka jabtay oo kale, taasoo u baahan tahay markii lafta la kabo oo la bataajeeyo. Qofkana la bataajo lagu sameeyo qofkan laga ilaaliyo dhaqaaqa oo kale. Iyo jabniin waxaa jira marka mid lafaha ay burburaan, inay lafta ay burburto oo kale, kaasna waxaa la maqas jabniinadu ka mid yahay. Marka qofka markuu soo jabo kale ama qofka intuu kusoo jabo kale waxaa loola tahay marka garoonka la joogo kale qofka in oo baakooyin ama shay adag in gacanta lagu ilaaliyo, ama baakada hadii noqoto meesha jabto in afarta koono xarig lagu xiro si tartiib ah meesha xarunta ugu dhow qofka caafimaadka inuu gudbiyo. Jabniinka sidiisa banaan waa lafta oo jug soo gaarta, taasoo markaasi la kabi karo, dib loo celin karo haddii lafta aysan toos u burburin. Haddii ay lafta toos u burburto waxay noqonaysaa marka in laftii ay booska u baahan tahay wax lagu soo buuxiyo, ama qofka lafta inay ka gaabato oo kale. Calaamadaha lagu garto marka qofka inuu jabay ama jabniin qofka inuu lafta ay ka jaban tahay waxaa ka mid ah qof in loo arko lalabo, ama in lagu arko qofka inuu soo dhidido, ama qofka inuu wareero oo kale. Calaamadahaas ayaa ka mid ah jabniinka. Marka qofka sidoo kale ka mid ah marka